Hello guys, assalamu alaikum. Welcome to Hello Ramadan, Iqra's yearly event for the blessed month of Ramadan. Assalamu alaikum, kusoo dhawaada Hello Ramadan. Iqra waxay qabataa barnaamijka loo yaqaan Hello Ramadan bisha Ramadan ee barakaysan. Sanad kasta waxaa loo qabtaa in ardayda la baro the ways to pray, hababka loo cibaadaysto, the ways to thank people, the ways to bring happiness to people, hababka dadka loo caawin karo, lagu faa'iideyn karo, or especially in English khasa. So today ashkan wuxuu noqonayaa 10 ways to say thank you. 10 hab oo lagu oran karo mahadsanid. So ila socda. Number 1, much appreciated. Much appreciated. Dhawaaqa markasta kelmadda wanaad u fiirsatid. Much appreciated. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Amba aad iyo aad ayaan ugu qanacsanahay saadii caawisay. Number 2, I own you one. I own you one. Mid baad igu leedahay. Mid baad igu leedahay weeyaan macnaheedu. Macnaha waxaad ii qabatay abaal ayaad igu leedahay oo abaal baad ii dhigatay. Number 3, cheers. Cheers brother. Cheers. Cheers macnaheedu waxa weeyaan aad iyo aad u fiican tahay amba hambalyo amba mahadsanid oo si yar faraxsan baad kolba oranaysaa. Cheers. Waxaa loo dhigay calaamatul cajiib. Cheers ayaad oranaysaa. Number 4, much obliged. Much obliged. Obliged macnaheedu waxa weeyaan wax la qabto oo aad iyo aad u fiican. Muchna waa badan. Marka much obliged markaad ku qabatay af Englishka waxay noqonaysaa wax aad iyo aad u fiican oo qabatay. Amba wax aad iyo aad loogu mahadcelinayo qofka. Much obliged. Number 5, you have my gratitude. You have my gratitude. Adu waxaad leedahay mahadnaqayga. Gratitude macnaheedu waa mahadnaq. Let's see. Number 6, thanks for having my back. Thanks for having my back. macnaheedu waxa weeyaan mahadsan dhabarkayga aad haysay. Dhabarkayga gacantahaaga kuma aad haysin. Macnaheedu waxa weeyaan markastoo waxay qabsadaan amba dhibaatadii haysatay dhabarkaaga ku qabato wadi caawinaysay amba wadi la jirtay. Let's see. Number 7, couldn't done it without you. Couldn't done it without you. La'aanta maan qaban karin amba la'aanta maan samayn karin. waa hab kale oo loo oranayo mahadsanid. Let's see. Number 8, I'm indebted. I'm indebted. waxaad ii qabatay ama abaalkaad ii gashay heer buu gaaray aanan kuu gudi karayn amba aanan kuugu celin karayn abaalka u dhigma. So number 9. Number 9 of English waxay noqonaysaa I'm blown. I'm blown macnaheedu waxa weeyaan waxaad samaysay aad iyo aad ayuu iiga yaabiyay amba aad iyo aad ayuu ii dhaqaajiyay oo mahadsanadkii meesha ugu sareysay la gaari lahaa weeyaan. Number 10 ta ugu wada dambaysa I'm beyond grateful. I am beyond grateful. Beyond waa ka tegay amba ka baxay. Gratefulna waa mahadnaqi. I'm beyond grateful marka macnaheedu wuxuu noqonayaa mahadnaqaaga waan ka baxayaa amba waan ka fogaanayaa. Maya macnaheedu waxa weeyaan mahadnaqaagii kilomitarku ii jaro aad iyo aad ayaan kuugu mahadnaqayaa. So maanta waxaad nala dhiganaysaan waa barnaamijka Hello Iqra.